fadlan subscribe saar isla markaana sii sheer garee si asxaabtaada kale u gaaro aad baana ugu mahadsan tahay muuqaalkan daawashadiisa. waxaa jira nin biigada ahaa oo magaciisa la oran jiray Maxamed. waxa uu waraaban jiray dadkaas asigoo ka iiban jiray biyaha suuqyada magaalada. dadka magaalada ayaa aad u jeclaa akhlaaqdiisa oo wanaagsaneyd iyo muuqaalka nadaafadiisa oo sareysa darteed. boqorka magaalada ayaa maqlay biigada Maxamed ahaa, waxaana uu ku yiri wasiirkiisa bax oo ii keen ninka biigadaha ah ee Maxamed. wasiirkii ayaa baxay si uu magaalada uga raadiyo ilaa markii dambe uu helay oo uu keenay Maxamed boqorkii ayaa ninkii biigadaha ku yiri wixii maanta ka dambeeya banaan shaqo kuma taalo, halkan ayaad ka shaqaynaysaa, waxaad waraabinaysaa martidayda isla markaana waxaad fadhinaysaa dhinacayga oo aad iiga sheekaynaysaa qisooyinka iyo waxyaabaha cajiibka leh. Maxamed ayaa ku yiri boqorka waayaha amarkaaga ayaa jira, wuxuuna ku laabtay hooyiisa biigada Maxamed ahaa sida uu u bashaareeyay xaaskiisa warkan farxadda leh iyo taajirnimada soo socota. maalintii xigtay wuxuu soo xirtay dharkiisa kii ugu fiicnaa asigoo soo qaatay weelka biyaha oo ku siin lahaa martida, ayadoo si fiican u soo nadiifiyay asigoo qasriga boqorka ku soo jiheysan. waxaa intaa kadib oo soo galay qasriga oo marti ay ka buuxaan, wuxuuna bilaabay in biyo oo siiya. markuu dhammeeyeen wuxuu fariisan jiray boqorka dhinaciisa si uu ugu mardaaliyo qisooyinka iyo waxyaabaha qosolka leh. qorraxdhacin wuxuu qaadan jiray lacagtiisa isigoo gurigiisa ku hoyan jiray. in muddo ah xaalka sidaasi ayuu ahaa ilaa ay timaado maalinkii wasiirka ay gashay dareen masayra oo ku aadan booska uu ka degay Maxamed qalbiga boqorka. maalinkii xigay wasiirka ayaa la kulmay Maxamed oo hoygiisa u sii socda, wuxuuna ku yiri boqorka waxa uu dhibaato ku qaba urka afkaaga ka soo baxaya. Maxamed oo lama filaan ku noqotay arrinkan ayaa weydiiyay wasiirka oo ku yiri maxaan sameeyaa si aan afka urkayga uusan u dhibin boqorka. wasiirkii ayaa ku yiri waa inaad afkaaga ku soo xirataa maro marka aad imaanayso qasriga. Maxamed ayaa yiri waa yahay wasiir, waan samaynayaa. kadib markii ay soo baxday qorraxdii waxa uu soo duubtay afkiisa isagoo soo aaday qasriga. markii uu tagay boqorkii ayaa aad ula yaabay laakiin kama hadlin arrinkan. maalin kasta sidaas ayuu afka u xiran jiray ilaa ay timaaday maalintii boqorka uu weydiiyey wasiirkiisii asbaabta ka dambeysa in Maxamed uu afka ka xirto. wasiirka ayaa ku yiri madaxweynahayo waxaan ka baqayaa in haddii aan kuu sheego aad qoorta iga jarto. boqorka ayaa ku yiri waxba kuma dhibaayo ee soo daa waxaad aad ii haysid. wasiirka ayaa ku yiri boqorow Maxamed wuxuu ka cabanayaa riixada daran ee afka ka soo baxayso. aad ayuu u carooday indhihiisana isku bedeleen. boqorkii wuxuuna aaday xaaskiisa si uu u sheego sida wax u dhaceen. waxay ku tiri nafsadiisa ayaa been u sheegtay, bere ayaa qoorta laga jarayaa sidoo tusaale ugu noqdo kuwa asiga la mid ah. boqorka ayaa ku yiri waan kula qabaa fikirkaasi. maalinkii xigay boqorkii ayaa u yeeray ninkii qoorgooyada u qaabilsanaa kuna yiri ninkii aad aragtid isagoo albaabka ka baxaya kaasoo wata xirmo ubaxa qoorta ka goo. waraabiyihii Maxamed ahaa waxa uu soo galay maalintii xigtay shaqadiisii sida caadada ahayd isagoo dhammeeyay biyasiinta martida, balse markii uu baxayay waxaa boqorka uu hadiyad u siiyey xirmo ubaxa. balse markii uu aaday xagga albaabka qasriga waxa uu la kulmay wasiirkii, waxa uuna ku yiri wasiirkii Maxamed yaa ku siiyey ubaxan. Maxamed ayaa ugu jawaabay waxa ay siiyey boqorka. waxa uu ku yiri keen, aniga ayaa kaaga xaq leh. Maxamed waxa uu siiyey ubaxii isagoo aaday hoygiisa, balse ninkii qoorta goynaya oo seeftiisa u diyaarsan tahay ayaa arkay wasiirkii oo wata ubaxa, qoorta ayuuna ka jaray. maalintii xigtay Maxamed wuxuu yimid shaqadiisa asigoo weelkiisa wata misna afku u xiran yahay, wuxuuna biyo siiyey martida joogtay. boqorka ayaa aad ula yaabay aragtidiisa maadaama uu haystay inuu geeriyooday. waa wacay waana weydiiyey maxay tahay oo afka kugu xiran yahay. Maxamed wuxuu ku yiri boqorow wasiirkaaga ayaa ii sheegay inaad dhibsatay urka afkayga ka soo baxaya, wuxuuna ii amray in afka aad soo xirto si aysan kuu soo gaarin. mar kale ayuu weydiiyey xirmadii ubaxa ahayd ee aan ku siiyey aaway. waxa uu yiri wasiirka ayaa qaatay, waxauna igu yiri aniga ayaa kaaga xaq leh. boqorkii ayaa inta uu madaxa luxay misna dhoola cadeeyey waxa uu ku yiri hubaal isaga ayaa kaaga xaq leh. qofka niyadda wanaagsan iyo kan qalbiga xun meel islama maraan.
marka aad qalbiga nadiif ka tahay ilaah wuxuu kugu deeqayaa nuur aadan ogeyn halka uu kaaga imanayo. dadka ayaa kaa jeclaanaya meel aadan adigu ogeyn. dalabkaagan wuxuu kaaga imaanayaa meel aad ogeen. ujeedada qisadan ayaa ah qofka qalbiga nadiif lugayo walba loo dhigo in Allah ka badbaadinayo. su'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ayu an-nas afdal qala kullu makhmum al-qalb saduq al-lisan qalu صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب قال هو التقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. waxaan idin soo jeediyay qisadan anigoo ah Axmed Abu Nuur iyo saaxiibkayga Cabduqaadir Khayska.